madaxweynaha gobolka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar ayaa waxa uu sheegay in weeraro deegaanadooda ka dhan ah laga awaabulo Puntland, Somaliland iyo Jubbaland. Ali Ibrahim Abdullahi oo warka door soo saaray ayaa ka waramaya. Mustafa Cagjar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa markii ugu horeysay waxa uu eedayn u jeediyay Somaliland wuxuuna ku eedeeyay in qayb ay ka tahay dhinacyada ammaan darrada ee xilligan ka jira gelinka shanaad. madaxweynaha ayaa sheegay in Puntland, Somaliland iyo Jubbaland ay qaraxyo iyo kooxo hubeysan u soo daawalayso jigjiga isla markaana halkaas ay doonayaan inay qallaaso ka dhacaan. sidoo kale madaxweynaha ayaa waxa uu xusay in arrimahaas ay la socdaan isla markaana ay wax badan ka qaban doonaan isagoona sheegay in dadka qaar ee hore u joogay gelinka shanaad ay dhibaatooyin ay ka geysteen halkaas sida uu hadalka u dhigay. qaar baa jira iyaguna meelahan jaarka Somaliland iyo Puntland iyo Jubbaland iyo jooga oo iyagu wali soo abaabulaya qaraxyo iyo xiriir la sameeyo shabaab baa jira oo adigan laga warhayo marka iyadoo raacayo Interpolka hay'adda booliska adduunka in iyadoo sidii loo wajihi lahaa arrintaas inaan maartay aan ku tala jirnaa oo ka shaqeyno marna ma dhacayso dadkii masaakiinta ahaa halkan joogay dadkii ciqaabigii inay intii lacagihii ay boobeen la tagaan dibadaha ku noolaadaan oo meelaha ay ku haystaan wax dhici karta ma hadalka ka soo baxay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Cagjar ayaan la ogeyn sida ay ugu falcelin doonaan maamulada Puntland, Somaliland iyo Jubbaland.